Mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee Somaliland ee wadani ayaa maanta si ballaadhan ugu soo dhaweeyay madaarka magaalada Hargeysa. Xogayaha siyaasadda ee xisbigaasi Maxamuud Raage Ibraahin ugu horreynna waxaa munaasabadaasi soo dhaweynta halkaasi warbaahinta kula hadlay xogayaha guud ee xisbiga wadani Maxamed Cabdilaahi Urcade. xisbiga digii fulinta golihii dhexe dhammaan wada dhanahay madaxdii kamida madaxda xisbiga wadani oo ah xogayaha siyaasadda Maxamuud Raage oo muddo hawlo shaqo iyo hawlo gaaraba xisbigu leeyahay tuub gaar u leeyahay ugu maqnaa bedaha dalal badan soo maray aad iyo aad baan soo dhawaanahay. sidoo kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay Maxamuud Raage Ibraahin xogayaha siyaasadda ee xisbiga wadani oo ka hadlay muddo kordhinta loo sameeyay xukuumadda Somaliland iyo golaha wakiilada. xaaladda dalka uu galay looma baahnayn anigu xagga eegi maayo xaaladda dalka dawladda maanta jirtaa gelisay waxaan u dariishanayaa meel kale ka dooni maayo khudbaddii madaxweyne Siinaay markuu gudoomiyaha xisbiga ahaa kulmiye ayaan dariishanaya adilay ah oo aan joogay anigu xaadir ahaa waxay ahayd dalkan inuu doorasho ka qabto waxaa loo igmaday mudane Daahir Riyaal Kaahin madaxweynaha qaranka ka mas'uula isaga ka mas'uula maana la igmaday waa kii in doorashadu ay halkan soo gaadho ama in doorasho la qabto waxaa loo igmaday oo gacanteena aynu ugu codeynay oo anigu aan u ololeeyay oo u kaambeen gareeyay oo maal iyo naf baan galiyay inuu isagu doorashada qabto marka doorashadii haday habsaatay madaxweynaha iyo dawladdiisa ka mas'uula wayba dhacdayba haddii dee aad doorashadii qaban kari weysay hallay dallacsiiyana waxay ahayd inay limid yeelato tii dambaanu ogolaanayoo doorashadii oo lagu feelgaroobay oo la qaban kari waayey ayuu xisbiga wadani markuu international community xisbiyadii kale ummadan usrada reer Somaliland arrintoodii markuu eegay waxay haddana xisbigii iska ogolaadeen another year sanad dambe in haddana maartay June commissionka uu gaaray markii hore sanad baa la kordhiyay haddana waxba la isla eegleego 6 bilood baa laga daba geeyo ay iska ogolaayeen xisbiyadu haddana 5 bilood baa guurtu ku cakuntay waxaas maqaranima 2 sano oo kororsiimo ah oo meel loo soo maro lahayn oo adila lahayn oo sharcigii iyo constitutionkii wuxuu dhigay daruuftu sheegay aan ku jirin ma yeeli karno annagu halkii commissionka uu taagnaa baan wali fadhinaa sabab maanta dib loogu dhigo doorashada ma ay oolin anigu waxaan aad iyo aad u jeclaystaa ninkii gudoomiyihii xaqsoor ee dhacay markuu hadlayo su'aalu 3 mar isweydiiyay baa jira qaranka Somaliland aanay dhigta u dhigin su'aashaas waxa weeye war nimankii golaha deegaanka markii qabanayeen aynu aragnay horta doorasho ma qaban karaan hadday qabtaan ma lagu kala badbaadayaa wuu ku ceshay habeenooda wuxuu yiri malayn ma inay doorasho qaban karayaan anigu waxaan leeyahay ma qaban karaanba oo awoodooda ma ahan. dhinaca kalena xogayaha siyaasadda ee xisbiga wadani ayaa u soo jeediyay xukuumadda madaxweyne Siinaanyo inay ku kalsoonaato komishanka doorashooyinka ixtiraamtana habsami u socodka howlaha shaqo ee komishanku ay dhawaan ay ku cayimeen waqtiga ay dalka ka qabanayaan doorashada madaxtinimada iyo golaha wakiilada. garsoorka doorashooyinka waa guddiga doorashooyinka weeyaan maxaa guddi doorasho loo sameeyay what means commission election of commission means waxa weeye iyaga ayaa garsoorkii ka ah tartankii doorashada haddii iyaga la diido dee go'aan ay qaateen ama go'aan ay rideen yaa yeelaya hadhowta berito guurtigu waxa ay meesha ka saaraysaa ama ay ka saartayba waxa weeye waa commissionkii bay meesha ka saartay waxay leeyihiin ma tihidin waxba leediima dirin noo shaqeeya annaga uun xitaa waxaa u soo qoran canaan baa u qoran markaan akhriyay go'aankoodii waxaa laydin farayaa inaad saa yeeshaan war iyagaa garsoor ah dad dhexaa la doortay oo 5 xubnood ay ka yimaadeen xagga muxaafidka la oran karaa war 5 xubnooda soo doorateen ku kalsoonaada go'aankii gaareen.